safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Jarmalka Maxamed Maxamuud Tiifow iyo qunsulka safaaraddaasi Maxamed Cabdi Kulmiye oo wareysi gaar ah ku siiyay telefishinka caalamiga MMTV magaalada Berlin ee caasimadda dalka Jarmalka ayaa waxay markii ugu horeysay ka hadleen dagaalka ka socda Ukraine ay sii xoogeysanaya in ka badan 1 milyan oo dad kuwaas oo ka soo cararay dagaalka Ukraine oo qaxootinimo u tagay dalalka qaaradda Yurub dadkaasi oo ay Soomaalidu qayb ka tahay ayaa soo gaaray dalka Jarmalka dadka ka soo qaxay dagaalka Ukraine oo Soomaalidu ku jirto ayaa markii ay soo gaareen xadka Poland sharciyadii ay siteen ama sharciyadii ay ku joogeen dalka Ukraine tuuray iyagoona cabsi ka qaba in dib loogu celiyo dalka Soomaaliya mas'uuliyiinta safaaradda ayaa sheegay dhalinyaro badan oo ku xaniban xadka Poland aan haysanin wax aqoonsiya oo muujinaya in ay ka soo carareen dagaalka Ukraine ayaa ku xaniban xadka Poland iyagoona mas'uuliyiintani sheegay in ay ku howlan yihiin sidii dhalinyaradaasi ay ugu soo samata bixin lahaayeen waa maadsantahay ayaan le sida la socotid dagaal ayaa ka bilowday walina ka socda Ukraine iyo Ruushka dhexdooda dad badan oo Soomaali ah ayaa ku sugnaa magaalooyinka Ukraine oo u joogay sifooyin kala gedisan dad badan waxay ahaayeen arday wax ka barata jaamacadaha Ukraine khaasatan meesha ugu weyn ugu badnaa dadku waxay ahayd magaalada caasimadda ee Kyiv waxaan ku jirnaa ku howlanahay la socodka dadka Soomaalida ah ee ka soo qaxaya Ukraine waxaan rabaa inaan kuu sheego dadka intii ugu badnayd way ka soo gudbeen xuduudaha Ukraine waxayna galeen intooda badan ay galeen ama inta badan aan xiriirka aanu ka helnay badidooda ama 90% waxay galeen dalka Poland sharaf ay noo tahay in maanta halkan noogu timaado aad naga wareysato xaaladda safaaraddeena Jarmalka iyo safaaradda Belgiumka run ahaantii juhdi aad u fara badan ayaana gelinay sidii ardada Soomaaliyeed ama Soomaalida qaxooti ahaan u joogta dalka Ukraine in aan wixii karaankeena aan la qabano ilaahay mahad ka gaarto inta badan muxuu ahaa safaaradda Belgiumka iyo safaaraddeennaba wixii waajibaad ah ay saaraa way ka guteen qolooyin fara badan ay halkan noogu yimid oo ayagana mataqaana run ahaantii ay ka muuqatay dhibaato iyo rafaad ay ka muuqatay iyo walwal fara badan ayagana muxuu ahaa markii halkan noogu yimaado waa soo dhaweynay marka annaka waajibkana saaran waxay ahayd inaan kala hadalno dawladdan Poland ee xuduudka la leh muxuu ahaa Ukraine la leh annakana aad iyo aad runtii noogu dhow in Soomaalida soo gaarta halkaas wixii ay u baahan yihiin oo ku saabsan safarkooda iyo xagga bini'aadanimada inay wax ka qabtaan intana waa ku guuleysanay sida aad maqlaysay qunsulka hawshaasi aad iyo aad ayuu gacanta ugu qabtay muddo saacado iyo habeeno ayuuna u dhafray run ahaantii mahad ilaahay ka gaarto qolooyinka hadda inta badan way soo galeen waa yalla mudakar MMTV Jarmalka.